بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 3 bisha July 2019 madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu kormeeray xarunta ciidamada daraawiishta ee dawladda Puntland ee 54aad markii uu halkaas gaaray madaxweynuhu waxa uu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta kadibna waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ugu sareysa ciidamada daraawiishta waxa kulankaasi goobjoog ahaa saraakiishii hore ee u soo shaqeeyay xilligii dawladda dhexe iyo dawladihii kala dambeeyay Puntland waxaana kamida General Cabdisamed Cali Shire madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland iyo waliba General Maxamed Xirsi Morgan kulankaasi waxa ujeedkiisu ahaa oo ku saabsanaa tirakoobka tayeynta iyo dhismaha ciidamada dawladda Puntland si loo helo ciidamo tirsan oo tayeysan arintaasi oo qayb ka ah ballanqaadyadii madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynuhu waxa intuu xafiiska joogay uu aad xoog u saaray arrimaha dhismaha ciidamada waxaana jiray kormeero iyo kulamo la xiriira arrimahaasi oo uu u kuurgalayay sidii wax looga qaban lahaa muhiimad gaarana uu siinayay dhinaca kale waxa madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo isla maanta qasriga madaxtooyada ee dawladda uu kula kulmay magaalada Garowe wafdi ka socda hay'adda WFP oo uu hogaaminayo sarkaalka WFP ugu sareeya Soomaaliya Mr. Laurent Bukera oo isagu dhawaan la filayo in loo wareejiyo Yemen waxa kulanka ka qayb galay isaguna madaxa WFP u qaabilsan Puntland Abubakar Sadiqi waxa laga wada hadlay wada shaqeynta WFP iyo Puntland deegaamadan sida uga howlgashay waxyaabaha ay qabatay iyo waxyaabaha loo sii baahan yahay in la sii sameeyo waxaana muhiimadu ay tahay in waxqabadkeeda WFP ay ku saleyso baahiyaha deegaanada ka jira oo deegaanada ay ka yimaadaan si ay uga jawaabto kulankaasina guul ayuu ku soo dhamaaday aad ba mahadsantiin